musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga macaaridka ee UCID Jamaal Cali Xuseen ayaa mowqifkiisii ugu adkaa ee dhinaca siyaasadda ah ganafka ku dhuftay heshiiskii dhexmaray saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda Soomaaliland kaasoo maalintii shalay ahayd xal laga gaadhay khilaafkii diiwaangelinta madaniga ah. Jamaal Cali Xuseen ayaa u sheegay warbaahinta in heshiiskaasi muujinayo muddo kordhin saadaalinaya isagoo ku tilmaamay mid qol madow laga soo abaabulay markaanu aragno waxay yihiin leeyahay waa lagu heshiiyay hadii ay wax macquul ah nooga muuqdaan waanu taageeri hadii ay noola muuqdaan wax aan macquul ahayn ganafkan ku dhufanayna sababta ummadda Soomaaliland la jahwareeyay maaha diiwaangelintan laftirkeeda madaniga ah ayaan dhowr jeer ka hadalay in carqalado badan ay ku jiraan xukuumaddan ay ka dhagaaday heshiiskaasi shalay tilmaamay ku jirtay iyo in kaleeto kala garanmayno 200 goobood bay gebigoodaba ka dhigeen halka tii hore diiwaangelintii noogu dambeysay ee dadkeenu ay galeen ahayd 1800 oo goobood ay ahayd oo ay nagu yareed waliba weynogno sida loo kala qaybiyay xataa beelo badan baa cabanay the building wixii dadka lagu jahwareeriyay ayron la iska talaalay waa la heshiiyay dadkana aan loo sheegin exactly wixii lagu heshiiyay waxa uu ekaanaysa qeyr mas'uulinimo iyo jahwareer ayuu ekaanaysa dadkoo dhanna waa inay talada ay ka mid noqdaan oo la isla wada ogaado waxaan oo dhan oo waxna wax sax ah inay inoo yihiin aynu ogaano beeshii caalamka ayaa ina daawanaysa midda kaleeto anigu runtii shakhsi ahaan kalsooni yar baan ka qabaa waxay xukuumaddu ku heshiiso inay hirgeliso xukuumaddu dhowr jeer ayay heshiisay la gashay xisbiyada macaaridka dhowr jeer baarlamaan loo qabtay lagaga baxay dhowr jeer ba heshiisay loo galay laga baxay inaan ayron intaan shacabka u tubno oo ilaahno anagu og wixii hore ayro dhacay ay noqoto xaalku shimbirayo heesa noqon mayso waa in marka hore waxaan wax macquul ah oo ummadda cuntamaya ay ahaadaan oo ku salaysan heshiiskaygii horeeto haddii aanu heshiiskaygii hore ku salaysnayn waxay noqonaysaa markaa inaan anagu ka soo horjeesano oo aan taageerayaasheeda sidii aan hore uga soo horjeesano baan uga soo horjeesano waxa weeyaan in la carqaladeeyo doorashada codbixiyaasha maaha diiwaangelinta codbixiyaasha maaha taasi weligeedba mid ka madax bannaan bay ahayd imika waxa weeye waxa dhamaanaysa September in gudaha lagaga jiraa baad ana waxaan u aragnaa waxaan oo dhan actionskan ay xukuumadda sameynayso inay ku carqaladeynayso doorashooyinka inay doonayso inay kordhisato oo dib ugu dhigto xisbiyada mucaaradkana dhamaaha inay shacabka u tumaan oo ku taageeraan in loo kordhiyo xukuumadda xaq darro loogu kordhiyo xukuumaddu madaxweynuhu waa kii maalin la igu dari maayo bal inuu taa ka dhabeeyay in kaleeto shacabka Soomaaliland ayaa u fadhiya oo daawanaya oo eegaya midda kaleeto qaran baynu nahay dimuqraadiyad qaatay dimuqraadiyadna in sideeda loo filiyo ay ku habboon tahay heshiisyada qaarkoodna in qol madow la gala maaha waa inay waadax noqdaan oo caddaadaan ay qornaadaan oo ay waxaan yihiin wax la isla wada og yahay lagu wada kalsoon yahay oo ay yihiin wax wada soconaya haddii kale ma shaqeynaya heshiiskii dhexmaray saddexda xisbi qaran iyo xukuumadda waxaa xisbiga macaaridka ee UCID u matalayay saaxiibkii gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe laakiin mudane Jamaal Cali Xuseen waxa uu si cad u sheegay in heshiiskaasi aanu waxba kala socon isagoo mar kale ku celiyay sida uu uga soo horjeedo heshiiskaasi anigu horta heshiiskaasi waxaan ka maqlan warbaahinta heshiisaan wax ku ogaa ama taladeeda wax ku lahaa muu ahayn markii aan u fiirsaday aan eegay heshiiskaasina wuxuu ahaa heshiis aan wax qodoba ah ama wax la kala saxeexday ama wax qoraale aan jirin nimankii hadlaayayna waxaan maqlayay iyaga oo kala hadlaya oo mid walba uu meel ku dhufanayo oo uu leeyahay arrinkaas ku heshiinay arrinkaasaan ku heshiinay marka sida dadku laftirkooda caadiga ay u wareereen ugu jahwareereen ayuu banaanuuna ugu jahwareeray heshiiska la sheegayo ee la gaaray oo dadkii meesha joogay uu qofo meel si u sharaxay mid yiraahdo hal qodob baa bay macaaridku ka cabanayeen oo macaaridkiina waanu saxnay mid yiraahdo madaxweynaha ka daba geynaya laba qodob heshiiskii qoraalka ah horta waa ogtiinoo heshiis hore jiray
heshiis saddexda xisbi kala saxeexdeen qaran madaxweynuhuna uu confirm gareeyay beesha caalamkuna ay markhaati nooga ahayd ayaa jiray baryahan dambe annagu heshiiskaas un baan culayska saarinay in la kala saxeexo heshiiskaas wuxuu ahaa in labada diiwaan gelinood ay dual track noqdaan oo ay isbarbar socdaan shalay toosay nimankii u hadlayeen heshiiska ka hadlayeen wala wax clear ah kuma yahayn anu qodobadii iyo wixii lagu heshiiyay wali ma hayo maan arag waxna waa wax marka hadii wax hore lagu heshiiyay oo wax laga bedelayo xisbiyadu dib isugu noqdaan oo ay dib u eegaan oo ay yiraahdaan gudiyadooda fulintu fariistaan oo la isku wada raaco halkii majority-ga raacdo si dimuqraadiyaddu ay u hirgasho weeyaan haddii la yiraahdo marka xasan maalidar telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.